cadawgaasi shalay asoo 50 kun oo ciidan wato ayuu Muqdisho yimiday asagoo cararaya laga saaray hadda oo aan mataqaana ka sii xoog badannahay ciidamadayna ay diyaarsan yihiin shacabkayna uu diyaarsan yahay waan ka adagnahay waan iska dhicinaynaa dhul Soomaaliyeed qalbi dahre iyo dhulkii weynaay oo aan lahaynay ay naga heesteen ummadda Soomaaliyeed dhulkaasi raadi jirtay kadib markaan ka daalna aan raadi weyno dhulkii iyo dadkii naga maqnaa ay hadda intii harsan nagu yimaadeen laakiin inay cadow yihiin way ka muuqataa waan iska dhicinaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan halkan u joognaa annagoo dawladda Soomaaliya inaan cadeyno inaan Itoobiya iska dhicinayno in aan ummadda Soomaaliyeed u sheegno inuu cadawgaas cadow soo jireen ahay muddo dheerba dadka Soomaaliyeed way og yihiin haddii la rabo in lagu sheego waad garan kartaa qof kasta ku soo kortay inay cadow ahaayeen dabcan dhul Soomaaliyeed qalbi dahre iyo dhulkii weynaay oo aan lahaynay ay naga heesteen ummadda Soomaaliyeed dhulkaasi raadi jirtay kadib markaan ka daalna aan raadi weyno dhulkii iyo dadkii naga maqnaa ay hadda intii harsan nagu yimaadeen waxaan rabnaa runtii inaan u sheegno dadka Gibiley iyo gobolada waqooyi ku dhaqan garabkiina taaganahay waa idin garbaynaynaa waan ognahay koolal badan oo nooga soo dhacay halkaas ay leeyihiin diyaar garooban ku jirnaa garab hana la siiyo garab la idin siinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay cadawgaas meel kasta oo mataqaana dalka uga jiro in loo diyaar garoobo in la iska bixiyo dabcan ummadda Soomaaliyeedna cadow aan lahayn cadawga Itoobiya ma leh muddo ayay isku dayayeen inay dadka Soomaaliyeed u sheegaan inay cadow ahayn laakiin inay cadow yihiin way ka muuqataa waan iska dhicinaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxda qaranka oo runtii nagu hogaaminayso in cadawgaas la iska dhiciyo waxa kale oo runtii rabnaa inaan u mahad celino adduunyada caalamka oo garatay in Itoobiya dulmigeedu oo dulmi cad yahay lana saftay dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda marka waxaan naga rabaa kaliya inaan annagu isku kalsoonaano cadawgaasi shalay asoo 50 kun oo ciidan wato ayuu Muqdisho yimiday asagoo cararaya laga saaray hadda oo aan mataqaana ka sii xoog badannahay ciidamadayna ay diyaarsan yihiin shacabkayna uu diyaarsan yahay waan ka adagnahay waan iska dhicinaynaa ma ahan inaan ka dhacsanayna hadda meeshay doonayaan dhulkii ay hore nooga heesteen waa ka soo ceshanaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku diyaar garoobaynaa hadalkeena uu yahay ummadda Soomaaliyeed had diyaar garowdo in cadawgaasi meel looga soo wada jeesto aad iyo aad u mahadsantihiin shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.